halkan waa channelkana YouTube-ka calanka Soomaaliya saaxiib yaal u dirgaro wararkii ugu waaweynaa ee maanta Jimco Wednesday 10 bisha 9 sanadka 2020 wararkeena saaxiib yaal waxa ka mid noqon doona waa kuma ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya xalay uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxaad ka taqaanaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ka dambeeya magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub xogo iyo warbixino gaar ah shakhsiyadda ra'iisul wasaaraha cusub ayaan eegi doonaa qodobada halista ay ku jira heshiiskii shalay ay gaartay madaxtooyada Soomaaliya iyo maamul goboleedyada wararkii ugu dambeeyay qasaaraha ka dhashay weerar xalay ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb oo Al-Shabaab halkaas oo weerar ay ku qaadeen sidoo kale waxaan eegi doonaa xaaladda Hiiraan oo dagaal ay ka soo cusboonaadeen milishada beeleedyo halkaas ku dagaalamaya wararkii ugu dambeeyay dagaalada Hiiraan ka soconaya muxuu ka yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka noqon doona saaxiib yaal wararkeena maanta kamid noqon saaxiibada ku xiran channelkeena oo subscribe dhee gambalelkana taabo si ay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada gaarka ah halkan ku baahino waa kuma ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xasan Rooble oo xalay madaxweynaha Soomaaliya u magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya hogaamiyana waqtiga inta ka hartay dowladda Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay Maxamed Xuseen Rooble u magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya qoraal ka soo baxay madaxtooyada sida lagu baahiyay Maxamed Xuseen Rooble oo ahaa nin ku lug lahaa siyaasadda Soomaaliya dhowrkii sano ugu dambeeyay wuxuu inta badan la shaqeynayay hay'ado caalami ah gaar ahaan ururka shaqaalaha adduunka ee ILO loo soo gaabiyo Maxamed Xuseen Rooble oo bishii Oktoobar sanadkii 1963 ku dhashay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug reer ahaan waxa uu ka soo jeedaa beesha Sacad Habargidir waxa uuna shahaadada heerka koowaad ee injineeriyadda ka qaatay jaamacadda ummadda wuxuuna sidoo kale shahaadada labaad ee masterka ka qaatay magaalada Stockholm ee dalka Sweden asagoo halkaasina dhowrkii sano ugu dambeeyay ku sugnaa wuxuu si wanaagsan uga hadlaa luqadaha Ingiriiska Soomaaliga oo wadankiisa ah iyo Sweden iyo Carabi sidoo kale Talyaaniga oo ku hadlaa kasoo Soomaalinimada waxa uu sidoo kale haystaa dhalashada wadanka Sweden waana aabba Soomaaliyeed oo leh 5 caruur ah oo ay bada carruurtiisa ku nool yihiin Sweden Maxamed Xuseen Rooble oo ah nin 14 sano la shaqeynay ururka shaqaalaha adduunka ILO ayaa qabtay xilal kala duwan intuu ka shaqeynay hay'adda qaramada midoobay hoosagta wuxuuna maraha hoggaanka Soomaaliya hay'adaasi maamulka dhanka mashruuca ah ee Soomaaliya u qaabilsanaa macada sida gaarka cid u xil saaran in ama madaxtooyada Soomaaliya ay keentay in ninkan loo magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay ayaa saacado kadib markii heshiis laga gaaray arrimaha doorashada heshiiskaas oo u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada haddaba taariikhdiisa kooban ka soo maxaad ka taqaanaa ra'iisul wasaaraha cusub yaasa ka dambeeyay in xilkan loo magacaabo madaxweynaha Soomaaliya oo xalay saqdi dhexe waqti dambe magacaabay 17 September 2020 ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya kadib 55 maalin oo dalka uu ahaa ra'iisul wasaare la'aan ra'iisul wasaaraha cusub ayaa lagu magacaabaa injineer Maxamed Xuseen Rooble waa injineer Soomaaliyeed oo ku cusub siyaasadda Soomaaliya marka loo eego marxaladaha siyaasadeed ee Soomaaliya xogo helay channelkan ayaa sheegay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya xalay uu magacaabay madaxweyne Farmaajo lagu qanciyay inuu magacaabo madaxweynaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Muudey iyo siyaha wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed ay ka wada shaqeeyeen labadan xubnood sidii madaxweynaha Soomaaliya u magacaabi lahaa shakhsiyan xilkan ayaa shakhsiyad badan ay u tartamayeen inkastoo markii dambe madaxweynuhu u doortay Mr. Rooble xaaladda dalka ayaa mid kala guura ra'iisul wasaaraha cusub ayaa waxa horyaala shaqooyin badan oo ku saabsan qabsamida doorasho waqtigeeda ku dhacda iyo sidoo kale in doorashadu laga shaqeeyo oo muddo kordhina aan la eegin haddaba dhinaca kale waxaan eegi doonaa muxuu ka yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ayadoo ku gudujirno farcelinta ka dhalatay ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame qoraal uu ku daabacay bartiisa Facebook ayuu kaga hadlay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kaas oo fariin adagna u diray Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa yiri madaxweynuhu waxa uu rabaa in aad hormuud u noqoto ololihiisa doorasho inta ka dhibna muddo xileedkan waxa uu kaloo rabaa in aad noqoto nin aan u dheelitiran qorshaha fulinta ee doorashooyinka
inkastoo aan kula talinayo ra-iisul wasaaraha inuu ka fogaado wax walba oo shaki abuuri kara ama keeni kara dib u dhac taas oo dhibaato weyn ka dhalan karto saamileyda siyaasadda dalka marna kuma talinayaan in dib loo dhigo doorashada ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame mudane ra-iisul wasaare waxaad wajahaysaa xaalad adag oo xasaasi ah oo u baahan inaad ka gudubto adiga iyo xukuumaddaada waxaan joognaa dal waqtigii doorashada ka hartay 145 cisho waxaana la sugayaa hanaanka doorasho ee dadban hadda lagu heshiiyay inaa wajahday mudane waqti badan ma haysatid waxaa loo baahan yahay inaad fulisid dhammaanba waxyaabaha hadda horyaala xukuumaddaada gaarsiinta doorashada lagu ballamay ayuu yiri inkastoo xil qaran lagu magacaabay haddana meesha waxaad ku matalaysaa miisaanka siyaasadeed dad gaar ah waxaan kugu boorinayaa inaad mar walba aad noqoto qof dheelatiran siyaasadda Soomaaliya la socota ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame oo qoraalkani ku daabacay bartiisa Facebook kadib markii la magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub xalay goor dambe wararkii ra-iisul wasaaraha halkaas ayaan ka gudbaynaa saaxiibyada falcelinta ka dhalatay wararkana kale aan u gudbi doonaa qodobada ugu waaweyn ee cawaaqibka ku ah villa Soomaaliya ee ka soo baxay shirkii shalay Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirkii madaxweyne farmaajo madaxda maamul goboleedyada ayaa villa Soomaaliya shalay lagu soo gabagabeeyay heshiis 15 qodob ah ayaa la soo saaray qodobada cawaaqibka weyn ee ku noqon kara villa Soomaaliya heshiiskaas waxa qayb ka ah in guddiga madaxa banaanaa ee doorashooyinka qaranka guud ahaanba la baabiyay qaybta koowaad heshiiska waxa ku qoran in dowladda federaalka ay soo magacaabi doonto guddi doorasho heer federaal kaas oo ay isla kaashan doonaan guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed taasoo muujinaysa qodobka koowaadba in guddigii madaxa banaanaa ee doorashooyinka qaranka ay meesha ka baxeen qodobka labaad ayaa micnihiisu wuxuu yahay in guddiga ay hogaaminayso Xaliim Yarey uu meesha ka baxaya haddii madaxweynuhu uusan go'aansan dib u magacaabista taas oo keeni karta in Xaliim Yarey marna aysan ku soo laaban xitaa haddii dib loo magacaabo guddigan ma yeelan doonaan awood buuxda waxaana awoodda kala bar ay qadan doonaan maamul goboleedyada maadaama ay soo magacaabi doonaan guddi doorasho heer dowlad goboleed kuwaas oo ka arrimin doona deegaan doorashooyinka shirkii Dhuusamareeb 3 ayaa waxa ku jira qodob ay guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qaranka ay hogaamin doonaan doorashooyinka hase yeeshee waxa ka hor yimid maamul goboleedyada maadaama guddigan lagu tirinay in madaxtooyada ay saaxiib leeyihiin hase yeeshee waxaa la sheegay in villa Soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo hadda u muuqanayaan in tanaasul badan ay ka sameeyeen qodobada ku jiraan heshiiskii Dhuusamareeb badi ay ahaa kuwa madaxweynuhu ku qanacsanaa laakiin hadda isbedel badan lagu sameeyay waagaag wararkii ugu dambeeyay ee Dhuusamareeb ayaan eegi doonaa garoonka diyaaradaha magaaladaas ayaa al-shabaab weerar madaafiic ah ay ku qaadeen khasaare ayaana ka dhalatay wararkii ugu dambeeyay weerarkaas ayaan soo koobi doonaa dagaalyahanno ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa weerar xalay ku qaaday garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug dagaalka ayaa ku soo beegmay xilli ciidamada AMISOM iyo waliba ciidamada Djibouti iyo kuwa Ethiopia la sheegay inay aad u adkeeyeen ammaanka ilaalinta garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb dagaalka ayaa la isku adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan oo dhawaqa madaafiicda ayaa la maqlay afafka hore ee garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb oo 7 kiiloomitir u jira magaaladaas ayayna rasaasta daryanka laga maqlayay halkaas madaafiic badan ay ku soo dhacayeen dagaalka ayaa dhex marayay al-shabaab iyo waliba ciidanka dawladda garan AMISOM iyo kuwa Djibouti iyo Ethiopia oo gacanta ku haya garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug wararka ugu dambeeyay waxay sheegeen in ay dib ugu laabteen dagaalamayaasha ka tirsan al-shabaab oo ay weerarka ku soo qaaday garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb ee dib u gurasho sameeyeen markii laga itaal roonaaday sanadkii 2012 kii ugu dambeeyay ayay shabaab sidoo kale weerar toos ay ku soo qaadeen garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb balse waxa xilligaas ka adkaaday xoogagii Ahlusunnah ee maamulayay garoonka diyaaradaha al-shabaab ayaa la sheegay dhowrkii cisho ugu dambeeyay in aad u kordhiyeen weerarada isdaba joogga ay ka fulinayeen maamulka ee deegaano kamid ah Hirshabelle kaas oo u muuqanaya weerar xargaha goostay marka loo eego qorshaha al-shabaab iyo weeraradooda halkaas ka dhacay ma jiro wax warar ka soo baxay dhanka la xiriira dawladda Soomaaliya dawladda ugu dambeeyay Hiiraan hadii aan eegno mar kale waxa ka dhacay dagaal beeleedyo ayaa ka soo cusboonaaday gobolka Hiiraan
gaar ahaan deegaano u dhexeeya galgaduud iyo weliba hiiraan ayayna dagaaladu ka dhaceen Matabaan iyo deegaano kale hoostaga waxaana la soo warinayaa in halkaas dagaal beeleedyo ay ku dhex mareen maleeshiya beeleedyo hubeysan oo deegaankaasi ka dhisan faahfaahin badan laga helin dagaalada halkaasi ka dhacay wararka qaar ayaa sheegaya inuu jiro khasaaro soo kala gaaray labada maleeshiya halkaasi ku dagaalamaya ciidamada militariga Soomaaliya oo ku sugan gobolka Hiiraan ayaa la sheegay inay ku baxeen dagaaladan oo bilowday xalay ilaa maantana qaab goos ah ay kaga dhacayeen halkaasi wararka ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya loo diray halkaas oo ay kala dhex galeen wararkan ayaa ugu waaweynaa saaxiibayaal wararkii maanta Jimcahan waana ka taasina badgaliyo